Sheeko ku saabsan khaadka. Nin ayaa khaad aad u cuni jiray. Markii dambe ayuu dibadda u dhoofay oo sannado badan ku maqnaa wuxuu noqday maalqabeen lacag badan haysta. Dalka ayuu dib ugu soo laabtay muddo dheer kadib si fiican ayay asxaabtiisu u soo dhoweeyeen. Kadib wuxuu dalka baday khaad meesha uu joogana waa hotel weyn oo xaflad soo dhoweyn ah loogu sameeyey kadib markii uu khaadkii cunay ayuu ku marqaamay ayuu musqul ama suuli u baahday kadib isaga qaawan ayuu suuligii sooday gabdho xafladda joojay iyo dadkii oo dhan ayaa soo eegay. Kadibna suuligii markuu hawshiisa ka soo dhammaystay ayuu asla meeshii soo maray isigoo qaawan kadib markuu qolkii tegay ayuu isgartay inuu qaawanaa markuu suuliga aaday. Kadib intuu soo laabtay isagoo qaawan weli ayuu gabdhihii ku yidhi hadayto anoo qaawan ayaan meesha soo maraya raali ahaada. Hadda ayuu qaawan yahay. Waxaan soo wadnaa sheekooyin badan. Soo follow garee